أرنت كوبادي وحي هيد قليه أوضل أو كفر حسنا إن مدحوين عرّ واحد كستيكد عطسدين وفوليه إن ماذا وجودر حكومته صبحينا وزيرة ذي حلبان هذا هبين كين جبهتها يبقى قرن كواسط كدومينا أدبوهم بلينين برت أفر شيء ويكون بين بولوسمي عبد السعيد فهي دونتها أوجله إن لقى بدلو وحوار كان نقول قبل كوجا برسها كي حكومي إنك يساقني إن لقى بدلو قول بوار كان ويبدأ البدن بهذا دكمل لبلبين حير عيسين لجوجي يهرود البدن هنا هو ده القصة هوش يسوي دنا عاد بوجو فرحان نين إيه غير كوجا جود برسي إن الهلك على كيرنا عاد بوجو سي فرحان وحنا ضوء هذا أركينا قابل عصب ودولة ديسكا iyo maareynta bulshada ayuu 10 jadiid naga baraya ciro wuxuu leeyahay madaxweynaha dadka wadanka oo dhan bay doortay laakiin dadiyowga qaar ayaan dalabkooga si toos u fuliya dadiyowga qaarna ima tirsana inaad xasuusantiin mooyaane waxaan anagu beesha kaliyaata ee deegaankeegii loogu diiday inay xus xeerkeyga ugu samaysato sababta loogu diidana ay tahay beel kale inay tiri reerka ma iga qabatiina madaxweynaha uu ka yeelay odayaal weyn salaadiin oo Turkiga iyo dad indhergaradna ay ku taageersanayeen horta Cabdi Saciid Faahiye iyo barasaabkii laga bedelay awdal labadaba waxaan leeyahay horta mahadsantiin dowladnimada dhabta ah waa taad inigu hayseen maareyn dhaba leadership dhaba in dowladnimada wax walba aad ku horeysiiseen ayaa keentay maanta in la bedelo dhibaatana ma hooda taariikhda inigu khashinka kama galaysiin dhinaca ugu fiican baad ka gasheen waad mahadsantiin khayr way baan rajaynaa gobolkii sali lahaa oo ah gobolka kaliyaata ee loogu ogol yahay ciise waxa la keenay nin ciida gala isagana horta waxaan leenahay soo dhawow laftigiisa dad ku dhaganaa waxaan arkay lahaa aynaba wuxuu ka muuqabanayay salal muxuu ka qaban horta saddex shay baan leeyahay waxaan leeyahay soo dhawow gobolka nagaale adiguna aad ka talin doontaa hadba wixii aad ummadda kula heshiiso ayaad kula talin doontaa maanta shalay haddii la ogolaa qof kasta inuu meesha iska yimaado maanta qadiyadii maanta waa nin dhulkiisii ku baraarugay inuu ilaashado waxaad u talin doonto tukoobaad waa taa talabaad ha iloobin si tolkaaba ay dhul xeeran ay u leeyihiin annaguna dhulkan inuu yahay xeradeedii ta saddexaad waxaan kaa sugaynaa mashaariic runa oo gobolkan loo gaarsiiyo gobolada kale Soomaaliland boorba waxa loo soo magacaabay barasaabka bursiya waana tay dalbadeen wayna heleen iyagana waxaan leenahay ilaahay ninkana isku kinastro waxaa kale xalay tele Facebook oo socday niman ka faaloonayay in wasiir Cabdi Qani loo magacaabo barasaabka gobolka Saaxil markiiba waxa la soo booday waa basaas Djibouti u shaqeeya hadduu bay dekadii berbera gacanta u gashay Djibouti horta waxaad garanayn dekada berbera hadii la doonayo xogteeda Djibouti iyadoo la fadhiyo la heli lahaa don't need inaan halkaa tagno saan xog u helno xogta Soomaaliland anagu halkan fadhina waa la heli karaa wadan walba soo halkiisa fadhiyo heli karaa laakiin waxa taalo leeyahay waxa weeye in xilli aad inigu doonayseen dhulkiina inaad ilaashataan oo dadka kale dhulkooda ku dul xaraashtaan inuu doontan ay galay inuu nidhaahdo xaraashisa kaaga xaraashkayga ma xaraashisa inuu sababtaan iskaga casilay wasaaradda gaashaandhiga oo idin hayay markii qadiyada laas caanood socotay wasiir buha macalasaf dowladnimada inuu badbaadiyo geed dheer iyo geed gaaban baa u koray abaalna laakiin ugama haysiin idinkeena idin taala laakiin miduu marartan xasuusinaya ninkanaad ku dhagantiin ilaahay baa nasiib u siiyay in tolkii Djibouti ay ka taliyaan dardhaban ay ka taliyaan Itoobiyana madaxda sarsare ay ka yihiin ilaahay baa nasiib u siiyay wuxuuna waa qayb ilaahay wuxuu qof soo boobay ma marka horta hinaasaha intaad iska daysiin qofka iniga nila nool ee waliba deegaan nigu dhaxle ogolaada waxaan
waxaan maanta arkay sartuba meesha ay ka qorunsan tahay maaha oo kaliya hoggaanka Soomaaliland waa fikirka Soomaaliland ay ka haysato beelaha degan meesha sida awgeed waxa maalimaha soo socda aan fidin doonaa maadooyin dalbar ah oo nagu kala bari doona deegaanka Ciise intuu leeyahay xaq uu ka bilaabmo iyo xaq uu ku dhamaado dhaqamada ka jira taariikhdiisii waxa soo dhammaan bari doonaa waayo shilka ugu weyn ee walaalka ka badbaadin karto waa jaahilnimada waxa kale oo jira iyadana iga yaabiyay odagii Suldaan Dawlaha wuxuu yiri jabhadihii buurta galay wuu yeeray wuxuu yiri kaalay marka waxa la sameeyay jabhado madaniya ina xasanaysan mooyane jabhadii SSP ma xasanaysiin sayid nimankan isaaq intay matalayaan oo matalaada ku maqan yihiin ayay dad ciyaarno meesha ka dhex ciyaareen jabhad baa durba wala sameystay buura la galay sax burito la jabhada wala leeyahay madani iga dhig qaranka macnaha ciidanka qaranka la igu biiriyo burito lana wixii ra Soomaaliland loo dhanay saas lagu kala diray marka isaaq intuu Ciise ku xumaynayo oo ninka Ciise halka joogo u dulmayo Djibouti wuu leeyahay aqoonsi leh intuu leeyahay halka ninka guduburisagu wuxuu wadaa qadiyad ah si Soomaaliland loo kala jiri lahaa kumana baraarugsana laakiin dhammaan salaadiintii iyo cuqaashii iyo dargaradkii iyo siyaasiyiintii isaaq waxay ku heshiiyeen in Ciise lagu dhex bahdilo Soomaaliland ka kaliyaatay bahdilka ka soo haray meel gaarina in la farafareeyo la yiraahdo Djibouti uu ka soo jeedaa والله أنا خطرت أي مقاطعة وحويان Soomaaliland la soo afjarayo dad badan waxaan arkay ilaa aqoonsiga soo dhawaad wax ka soo dhawaad laakiin jiro wax ka soo dhawaad waxa weey Soomaaliland oo sida ugu daysa waana ka damqanayaa runaantii walow aan anaga beesheed waxba ay ku haysan oo dhukeegii lagu gaajoonayo lagu dacdaroonayo haddana waxaan ka xumahay dawlad dhisan oo hagaagsan oo socon karta oo dadintaas oo dhan oo sanadood ay aaminsanayeen oo hanti la gashaday in dawladdaasi ay ku baabado kibirka dad fidnad wada iyo in dadka u hoggaansan inay ku baabado aad uga xumaa haddaba jabhadaha isaaqi ka jira Hargeysa waxaan leeyahay siiba jabhada habar awasho waxaan leeyahay aniga sida la igu haysto Zeylac ugaas iyo Suldaan bal isku soo raacay ayaa adigana lagu haystaa hadafka la doonayna waxa weeyaan abaarso ilaa iyo Boorama la isku xiro Boorama iyo Zeylac in la isku xiro jabhadaha maanta qaranka dhex galayana ay ka soo wada baxaan oo birito waxaas oo dhan inta la qaado meeshii la doono la hoos geesto وين هدف كلا دوني لكن كم براركسنيدين واي Soomaali laan marka la soo hado qaado inaga meel baa skiin joogsanaysa dadka ma fikiri karaysiin laakiin waxaad fahantiin laftigeega Soomaaliland inay tahay waxna li adeegsanay idinka idil si qadiyadihiina li baabiyo dad ahaan liigu baabiyo marka baaq waxaan u dirayaa dad yowga reefayo Soomaaliland dhex jooga dawladuhu say ku burburaan fahmi kara inay arrinkan ka foojignaadaan fiira gaalana ay u yeeshaan inta idinka inii diraya waxa jiray maalimahan erge nabadeed oo ka timid dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hogaaminayay garaad kulmiye ina garaad wilwaal oo nin abaal weyn anaga nagu leh daan ciisanahay iyo daan Soomaalinahayba wax badan nala damqaday oo nala damiiraha qadiyad Soomaali ay leedahay inuu taagan oo fahansan waxa marka la wadaa odayada ergada nabadda ka midka ah ee Soomaaliland jooga waxay wadaan inay Ciise yiraahdeen bal kaalay aan skiin hor fariisinay oo cidii wax leh aan tusnay talkii marka waxaan leeyahay in dargarad haw siyaasi haw sheekh haw jabhad haw dhulkaaga difaaco qadiyadaada difaaco sharaftaada difaaco irdigaaga difaaco ayaan leeyahay
dadyowga iyagu miidiyaha iyo waxa hal doorka ka aan waxaan leeyahay taariikh cusub baa maanta isqoraysa waxaana bilaamaysa maalmaha soo socda hadii laga foojignaan waayo dagaaladii ugu qaraara ee dhul umadeed ummad Soomaaliyeed ay leedahay ka dhaca ayaa bilaami doonaan say la tahay. Wassalaamu